بسم الله الرحمن الرحيم وعنا وناكسن أخيارتا ودي إيقا داونيساي كسو دوادا وراركي سوماليدا كوودي ugu dambeeyay oo hadahan kale ka daawataan page-kan waa 13 bisha afraad 2026 muuqaal wareedkan intuu soconayo hadduu eebaydmo macluumaadka aad ku maqli doontaan ama aan kugu faaqiidi doono waxa kamid ah maxaa ka soconaya aaga degmada Jilib ee xarunta u ah ururka khawaarijta shabaab halkaas oo duqaymo ay ka dhaceen iyo hawlgal military oo cirka iyo dhulka ah intaana ku soo gudbin qodobkaas faahfaahsan fadlan maqaalka leega saar oo share garay oo ogey cid u baahan xogtan aynu ku bilownay saaxiibayaal saad maqaalka hordhiisa ku maqleydeen ciidamada commandoska danab ee xooga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya daraawista Jubbaland ayaa hawlgal qorsheysan ka wada deegaano oo siimaada degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe ciidamada iskarabsanaya ayaa beegsaday fariisima iyo goobo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan khawaarijta shabaab sida warka loo dhigay kuwaas oo halkaasi ka waday abaabul iyo fal amni darro oo ka dhan ah shacabka iyo ciidamada waa sida warka loo dhigay hawlgalkan ayaa ahaa mid heer sare ah oo loo soo qorsheeyay ayaa waxa wehelinayay duqaymo dhanka cirka oo ay fulinayaan saaxiibada caalamiga ayaa warka lagu sii sheegay kuwaas oo si gaar ah uga dhacay agagaarka degmooyinka Jilib, Hagar, Afmadow iyo sidoo kale bartilmaameedyo goobo muhiim ah oo dhaqdhaqaaq khawaarijtu halkaas ay ka wadeen saraakiisha ayaa sheegay in duqaymahaas ay door weyn ka qaateen jebinta kooxda isla markaana ay si sahlan ciidamada dhulka ay si fudud u gaareen fariisimihii ay bartilmaameedka u ahaa iyaga oo aan la kulmin wax iska caabin culus ah waa sida warka loo dhigay inta la xaqiijiyay hawlgalkan ayaa waxa lagu dilay xubno ka tirsan khawaarijta shabaab inkasta oo si rasmi ah aan loo shaacin tiradooda waxaana sidoo kale gacanta lagu dhigay hub kala duwan iyo miinooyin ay wateen kuwaas oo isugu jiray qoryaha trendooriga oo dhaca iyo kuwa fudud sida BKM, RPG iyo AK47 ayaa lagu sheegay warbixinta saaxiibayaal sidoo kale ciidamada ayaa burburiyay goobihii ay kooxdu ay deegaanka ku kaydin jireen hubka iyo isku dabaridka weerarada taas oo la sheegay inay qayb ka ahayd dadaalada lagu wiiqayo awoodda kooxda waa sida warka loo dhigay saaxiibayaal ila wareedyo hadda ayaa waxay sheegayaan wax yar oo ka soo baxay dhinaca khawaarijta shabaab oo ku saabsan hawlgalkan khasaaraha la sheegay in la gaarsiiyay iyada oo inta badan kooxdaasi ay aamusan tahay weerarada noocan oo kale marka ay dhacaan ama fariisimo kala duwan laga qabsado waa sida warka loo dhigay saaxiibayaal waxyaalihii dambe ka soo cusboonaanada waxaad ku daawan doontaan muuqaalada kale ee soo socda saaxiibayaal fadlan muuqaalka leega saar oo share garay halkan markasta waa update wararkii muhiim ah oo Soomaalida ku saabsan ayaynu marmar iskula eegnaa wixii ka soo cusbanaada gobolka Jubbada Dhexe muuqaalada kale ayaad ku daawan doontaa oo muhiim ah fadlan muuqaalka leega saar oo share garay oo ku ciido baahan